Welcome asxaabta filinkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay filin khatar oo balaayo ka dhacday. Waa libaax. Qoladan aad ujeedaan waa butchers ama kawaanlayaal. Waxay ugaarsadaan libaaxyada, balse caawa waxay arkeen wax ka yaabiyey kadib markii libaax halis ah soo arlagala. Ninkan aad ujeedaan ayaa dabagalay libaaxiisa hantiisa ayuuna halkan ku soo arkay. Kadib dib ayuu soo laabtay isagoo naxsan, balse dhaawac halis ayaa loo soo geystay. Waa kana saaxiibkiis ayuu ku yiri carar, wuu soo socdaa carar, balse siriq ayuu ku dhacay saaxiibkiis. Siriqdiyadeed markuu ku dhacay halkaas ayuu libaaxi ku cunay. Halkan kale waa Dr. Nate iyo labadiis gabdhood Nora iyo Meer. Hadda ay Afrika imaadeen. Saaxiibkiis ayaa halkan ku soo dhabeeyay gurigiisa ayuuna keenay. Gabdhaha waxay weydiiyeen in wifi uu jiro, balse waxaa la yiri wifi iyo network wax meeshan ka shaqeynaya ma jiro. 10 biri hadda dhiman, inteenadu ay go'an tahay. Wuxuu bilaabay aabihii gabdhiisa inuu tuso sawiradii, sawirka hooyadood iyo waxaas. Gabdhihii waa yaaban yihiin, waxayna aabahood leeyihiin maxaan u keeni weysa hooyo inta dhiman ka hor. Asigana wuxuu leeyahay hooyadiin way jirneed, way xanuunsaneed, markaan kala tagnay kadib ayayna dhimatay. Kadib waxaana la tusayaa qolo kale oo la yiraahdo ugaarsayaal. Kan waa Benji, waana ciidanka ilaalada keynta iyo duurjoogta. Halkan waxaa joogo waa labadii gabdhood iyo aabahood iyo ninkii kale oo halkan ku soo dhabeeyay. Wuxuu u soo dhawaaday oo u sii socdaa waa libaaxyadii isagoo aan ka baqaynin, maxaa yeelay waa libaaxyo ay is yaqaanaan. waa isla ciyaarayaan libaaxyadii cabaara. weliba kadib ayay halkooda ku laabanayaan. Wuxuuna arkayaa in libaaxyadii ay markaan samaysteen family, weliba ay caruur u joogaan, sidaas darteed aynan ogolaanin in loo soo dhawaado. Kadibna waa isaga soo tagayaan oo wadada ay ku soo laabanayaan, waxayna u socdaan gurigoodii. balse waxay soo marayaan meel tuulo ah ay dadku ogaayeen. Waxayna arkayaan in meeshii gebi ahaanba ay iska baabaaday oo cidna aysan joogin. wax bini aadan halkaani ma joogo, balse si dhaqso leh ayuu wuxuu arkay in meeshii balaayo ka dhacday. Gabdhihiisa ayuuna meel ku soo qaranaya, kadibna wuxuu fiirinayaa meesha wax ka dhacay. wuxuuna arkay in dadkii si aan caadi ahayn uu bahal u dilay. bahalkaas ayaga way la yaabiin, waxay leeyihiin maxaa dilay, ma libaax baa, ma waraaba, ma shabeel baa. ninkan saaxiibkiis wuxuu sheegay in arrintan oo kale weligiis uusan halkan ku arkin, ayna laga yaabo inay yihiin waraabo. balse wuxuu kaloo sheegay in bahalkii dhibaatadan geystay uusan meelahan ka dheereen, maxaa yeelay dadka dhaawacyadooda weli waa waxbaa way cusub yihiin. kadib si dhaqso leh ayuu odaygii aabihii wuxuu ogaanay in mid ka mid ah gabadhihiisa ay maqan tahay. waana u yeerayaa magaceedii ayuu ku celinayaa, uu dhawaaqaya, uu raadinaya. ugu dambeyn wuxuu arkay iyadoo shoogsan oo aragtay qof dhintii. kadibna way isaga soo laabanayaan tuuladii. wuxuu isku dayay inuu la xiriiro qoladii ilaalada xayawaanka, balse ma u suuragelayso arrintaas. dib ayay u soo laabanayaan, waxayna arkayaan qof wadada taagan. markuu qofkii u soo dhawaadaan waxay arkayaan inuu yahay qof dhaawac aad iyo aad halis u gaaray. wuxuuna u sheegay in libaax uu baabi'iyey, midna uusan ka noolaan dadkii ku noolaa tuuladii yareed. kadibna libaaxii ayay raadinayaan oo isku dayay inay soo qabtaan. wuxuu arkay raadkiisa, kadibna wuxuu ogaanay inuusan libaax meelahan uusan ka fogeyn. halkan gabdhihii ayagu ay baqanayaan, aabahoodna uu ag joogaa, balse wuxuu arkayaa in libaaxii uu soo eryanayo, waa uuna ka soo cararayaa. gaariga ayuuna si dhaqso leh u soo galay, albaabku xiranayaa. libaaxii muusan bixin oo wuxuu isku dayaa inuu gaariga usoo jabiyo si uu u cuno saddexdoodaba. waa libaax aad iyo aad u caraysan oo dhibaata loo geystay. waa uu ka yara faktay, balse gaariga ayaa shil galay oo buur kala dhacay. halkaas ayayna ku xayirmeen. hadda Nate wuxuu isku dayay inuu gaariga kiciyo oo u dhaqaajiyo, balse waa uu ku guuldareystay. balse wuxuu raadinayaa network iyo anteeno. saaxiibkiis ayuu ugu dambeyn la hadlay, wuxuuna sheegay in libaaxii uu soo weeraray dhaawac halisna uu la gaarsiiyey lugtiisa.
uusan dhaqaaqi karin halkaasna uu joogo. Wuxuu kale kula talinayaa in uusan gaarigiisa ka soo bixin oo halkiisa joogo ilaa dad caawi ay ugu imaanayaan. maadaama Knight uu yahay doctor, saaxiibkiisa ayuu talooyin siinayaa. Talooyinkaas ayuuna qaadanayaa si uu dhiiggiisa isaga joojiyo. sidii ayuuna sameynayaa. qayladiisa ayay maqlayaan, waxayna ogaanayaan inuusan ka fogin agagaarkooda. wuxuuna u sheegayaa inuu mar dhow isku dayo in uu soo gaaro. saaxiibkiisa ayaa khadka kala hadlaya. wuxuu sheegay libaaxa waqti xadarkan uu ku soo socdo xaggiisa uuna u soo dhow yahay. Nike ayaa gaariga ayuu baaray, wuxuuna ka helay qori. gabadhiisa ayay u sheegaysay inay tahaan sida lasugu xiro ayna hore u aragtay. qoriga ay isku xirxirayaan oo ay isku rakibayaan. kadibna saaxiibkiisa wuxuu u sheegay inuusan soo bixin oo halkiisa joogo, balse Knight wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo saaxiibkiisa. qoriga ayuu gaariga lasoo dul fuulayaa, wuxuuna ku raadinayaa liifka. libaaxi isigoo raadinaya ayaa gabadhii waxay leedahay aniga ayaa halkan ka baxayo oo soo wadayo. wuxuuna u sheegay gabadhiisa inay gaariga kusoo laabtay. iyadoo halkaas la joogay ayaa libaaxi waxay ka arkeen dhanka gadaal. libaaxi ayaa soo cararay, qoriga ayaana Nike ka finiininayaa. Nike gaariga hoostiisa ayuu ka galayaa. libaaxi gaariga ayuu dul fuulayaa, wuxuuna aadayaa gabadhii baxday xaggeeda. balse Knight ayaa soo baxaya. libaaxina dib ayuu u soo laabanayaa. gabadhii ayaa gadaal waxay ugu mudaysaa cirbad. libaaxina uu wareeraya oo iska cararaya halkii. kadibna ninkii odayga Mark waa la soo waday oo gaariga ayaa la keenay isagoo dhaawac halis ah qabo. halkaas ayaana xaaladiisa lagu dabiibayaa. waqtigan waa u socdaa oo habeen ayaa la gaaray. libaaxina halkii ayuu taagan yahay. halkaas ayayna ku sheekeysanayaan libaaxa iyo arrimihiisa. Mark wuxuu u sheegayaa saaxiibkiisa Nike inuusan libaaxsan dabeecadiisa tahay uusan weli arkin, ayna u badan tahay in libaaxa laga dilay aroosadiisii, sidaasna ay taas in uu aargudasho u socdo. taleefon ayaa u soo dhacay oo waxaa goobta soo gaaray qolyihii butcheriska amba ugaarsatadii. Nate wuxuu isku dayay inuu sheegay in halkan gaariga uu kala irido libaaxna uu soo weeraray uuna u baahan yahay meeshaan inuu isaga baxo, balse ayaga arrintaas kama yeelayaan. waxayna leeyihiin waa inaan baaritaan sameynaa, halkan waxaa ka qabanaysana waa inaan ogaanaa. gaariga ayagoo baaraya ay wax ku dhex arkayaan Mark. kadibna Nate ayay ku qabanayaan bistoolad. waxayna leeyihiin ninkan gaariga kuu saaray 3 qof ayuu ciidankeena ka dilay, waana nin dadka laayo. kadibna libaaxi ayaa soo weeraray. halkaas ayayna Nate gabdhihiisa gaariga ku xariisanaya. wuxuuna isku dayay in butcheriska gaarigooda uu soo qaato. markuu gaariga yimaadna wuxuu arkay inuusan furaha gaariga ku jirin. kadibna furaha ayuu raadinayaa oo meedadkii meesha yaala ayuu mid u baarayaa, balse wuxuu u ogaanayaa in libaaxii uu dul taagan yahay uuna kasoo cararayo. halkan ayuu ugu dhuumanayaa. taleefon gabadhiisa ayaa soo wacaysa, markaas libaaxi ayaa maqlaya taleefonka dhawaqiisa. halkaas ayuuna taleefon isaga tuuraya. gabdhihiina taleefonka ayay waxay ka dhex maqlayaan codka libaaxa, waa ayna naxayaan. waxayna u malaynayaan in aabahood libaaxii uu cunay. libaaxii sidaas ayuu goobtii ugu baxay. Nike-na mar kale ayuu libaaxii soo laabtay, balse Nike biyaha ayuu ugu dhuntay. ugu dambeynna Nike wuxuu soo helay furihii gaariga. dib ayuuna u soo laabtay oo gaariga xaggiisii ayuu soo aaday. balse Nike inta uu maqnaayay ayaa libaaxii dib u soo weeraray gabdhihii gaariga saarnaa iyo weliba Mark iyo libaaxiina gaariga ayaa buurta kala dhacay. halkaas ayuuna ku qarxay oo nafsadiisa ayuu ku biimeeyay si libaax uu dilo. Nike oo soo maqlay qaraxa gaariga ayaa soo cararay, wuxuuna u yimid gabdhihiisa mid kamid uu libaaxii dhaawac gaarsiiyey. halkaas ayuuna kula soo cararay oo uu soo baxay. wuxuuna yimid halkii ay ka baxeen tuuladii, wuxuuna yimid iskuul, balse qofna ma uusan joogin goobtaas. hadda wuxuu sameynayaa gabdhihiisa ayuu daaweynayaa, balse gabdhihii waxay ogaadeen in libaaxii uu soo dabagalay halkan uu joogo. Nike-na wuxuu arkay in libaaxii uu soo socdo. wuxuuna u sheegay gabdhihiisa in libaaxii uu soo socdo. libaaxina wuxuu u sheegay in libaaxii uu soo socdo. libaaxina wuxuu u sheegay in libaaxii uu soo socdo.
xabada ayuuna ku furay libaaxiina waa uu cararaya gabdhaha ayuu qol ku soo xiray wuxuuna leeyahay halkan jooga albaabadana xirta ilaa idinkaga soo laabanayo kadib libaaxi ayuu banbaxay asigoo waxna aan wadinin marka laga reebo mindi yar oo kaliya banaanka ayuu la soo cararaya meel barxad ayuu imaanayaa halkaasna dagaal ayaa ku dhex maraya libaaxyadii kale ayaa arkaya in libaaxan goobta soo galay waa inay la dagaalayaan ugu dambeynna waa ay dilayaan si uusan dhibaato ugu gaarsiinin ilmahooda Night wuxuu soo kacay isagoo isbitaalka jiifa dhaawacyo badan soo gaareen gabdhihiisana ay la joogaan filimkan caawa intaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum.